السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا قسين هذا لو ولكن محمد حاج حسن أنا قدومين الجردة ما شاء الله إذا ما سنتين دم ولا ما كسر كلولين dhibaatada hadda teegin oo shuban biyoodka ma in baahan xaalad emergency ah in degdeg loo qaado ana ma iska qoray lacag dhan $100 boqolkaas dollar oo ah inta ka hay kan ay siin baraga haytaan ma hadii ilaahay hadda may faday in xarunta ka dhowseeda oo falembooyin iyo walaay bikaasiite la gado kor la gada liin degdeg ah oo mutiliin deersiyo waayo qayb caafimaad rooga ana dareemo karo qofku markaas ma ka saxan dhiyo haddii isla markii falembooyin wala 24 saac oo halna isla markii fuuq bax ka dhigo qofka horaan dhimada si markan xaaladaas degdeg ah liin ku baxa walaalo ma ku cusubay wala isku qoreen in degdeg ah deersiyaan walaalo dhibaataysan injeesina laakiin may ku cudur daarado doonee beeshan deerta sin bandhig ka doona calaamad u kan sin bandhig ka doona laakiin meel la jeeyahay meel oo dadka dhalinyarada ay ka nooliyumo dadka qof ka sameeyay karo sawir toos ah ma jiri karo in sawir la helo video la helo iska dayaan hadii la hayr wala tabaraa laakiin wadamaan oo boqolkiiba ah ummadii daawada la jeeyay falambadi la kusuro madamaan qaado karo taas waayo telefoonada casriga ah in meel la galo ma ogolaado walaalo ma meel roona ku cusana telefoon nooc ala nooc wala ka sawir karaan wala ka duuban karaan in hanin ka duuban waan hanin diraan ku cusub doona walaalo xaaladan xaalad dabiici ah oo ummadda Soomaaliyeed ay la qabto laakiin dadka Kenya dibmiyin walaalayaal ku damqanaan qof kaas oo ma taqaddimu li anfusikum min khayrin tajidu 'inda Allah wal kasratu wa irhamuhum fil ardi yarhamuhum man fis samaa inasna xariisana iskaalmeeyna ida ma santiin hadawaado salaamu alaykum wa rahmatullahi